laga maarmaan ah inaanu xusuusino imisafal oo argagixisadu ay ku soo qaaday Soomaaliya kii ugu horeeyay baabuurka UNDP 19 bishii 2002 wuxuu ka mid ahaa fulalka argagixisada ee lagu soo qaaday dalkeena Martin nin loo jiray oo hotelka Star lagu diray 30 December 2002 Annalena Tonoli shantii bishii 2003 gabadhii nurse-ka ahayd ee Boorama lagu dilay 22 November 2003 markii lagu dhacay lacagtii wajaale oo ninkii shalay qiranayay ana ka dambeeyay waxa ahaa in Cabdi Godane oo madax ka ahaa waxa ku xigay dilkii gabadhii reer Kenya 19 bishii 2004 oo diin laga furiyay waxa xigay howlgalkii la doonayay in wax lagu yeelo doorashadeennii baarlamaanka ee 22 September 2005 waxa soo dhan waxay ahaayeen falal argagixiso oo lagu beegsanayay in Soomaaliland lagu khalkhalgeliyo maadaama ummadani waxyaabo badan dadaal badan ay sameysay oo aan oran karo kuwa sheegta al-shabaab ay rabaan inay Soomaaliland kala mid dhigaan meelaha waxyaabaha ka dhacaya waqtiyada ay dhacayeen waxa ay waqtigii doorashada u horeysay dawladda wasaan sameeyay يعني waxa la noo diidayaa inaan dawlad noqonaa la nagala dagaalamaya ujeedada la nagala dagaalamay falalkaas oo dhan waxay dhaceen waqtiyadii doorashooyinkii aan bilowday dawladda ugu hooseeyay 202 203 tii madaxtooyada aan bilowday waxaan xasuustaa berigii Ingiriiska tagayay 2004 13 Maars baan ka baxay halkan habeenkii anu Addis marayaba waxa la sheegay xawaalaha Ingiriiskii halka ku aasan dagaalkii labaad habeenkii la tijabiyay maalinta diinqa lagu diray qolada UNHCR loo galayna maalintii baarlamaanka Ingiriiska ka hadlayay waad garan karaysaa markaa inaan target nahay oo dagaal oo inagu socdo loola jeedo in qarannimadeennan iyo jiritaankeena ma ahin dagaal loola jeedo aniga oo shakhsi ah ama qof kale shakhsi ah waa dagaal loola jeedo maaragtaanay Soomaaliland iyo qarannimadeena waxaan xasuustaa berigii u horeysay lamaanihii sheekh la dilay iyo Annalena oo ahayd 2003 inaan idhi falalkaas waa argagixis oo dadku ay la yaabanaayeen oo aniga lahaa maxay dalkeena argagixis loogu sheegaya ka sameeyay adduunka waad ogeydeen saddexdii maalmood u dambeysay Mumbai wixii ka socday Mareykantii ku dhacday waad ogeydeen 11 September maxaa laga bartay waxa la isweydiiyay marka qaarkood war waxaan dhacaya maxay wax looga qaban waayay waa su'aalaha laga yaabo inay dadkeena ku soo noqdaan markii la qiimeeyay xaaladahan dhacaya waxa lagu qiimeeyay waxani mal ogaan kari waayay maxay looga hortagi waayay waa waxaan ku soo dhici karin ba maskax bani aadanka waxyaabaha noocaas inay dhacayaan Mareykan oo kale diyaaraduhu inay duulaan oo magaalooyinkooda galaan de wax maskaxda Mareykan ku soo dhacay maahay waxaan ku dadaal doonaa xukuumadahan bal intayada aqoonta ciidamada amniga kor loo qaado si ay baraarug u yeeshaan lagaga hortago dhacdooyinka waxa fal dhacay way ku jireen dad shisheeye innaka u badnayn markastaba innaka u badnayn inta sameeyay dad innaka oo la duufsaday Soomaalidu waxa ku mahada gudun yahay ma goyseen haduna barkay kugu jir waxa markaa loo baahay shacbiga Soomaaliland ina kulligeen soo wada jeedno kulligeen boolis wada noqono baa loo baahay oo waxyaabahan ka dhacaya caalamka an aragti mid ah oo wadanyada
anigu aad uga amaanaya shacbiga Soomaaliland inay markastaba aragtida leeyihiin oo markastaba falalka dhacayay ay gacan ka geysteen aad uga amaanaya run ahaantii waxaan soo jeedinayaa maanta inaan baraarugeena ku ka weyn qaadano waxa muuqata oo jirta oo maanta ay naga qarsooneen caruurteeni oo magaalo kastaba laga kaxeeyay inamada shahaadiinta ay naga noqday ee koonfurta jooga Afghanistan iyo in Cabdi Godane ay madaxda ka yihiin ayaa caruurteena halkan ka kaxeeya oo halkaas jooga oo la lugooya oo qaarna halka ay ku dhintaan qaarna la inoo soo tababaraayo la inoo soo celiya waxa muuqata oo halkan jecelahay inaan fariintan ka gudbiyo inay dad waaweyn oo xitaa culimadeena waaweyn ay ku jiraan caruurtoodii qaarkood ay Kismaayo iyo Xamar iyo ku maqan yihiin ma oran karo iyaga diray laakiin way ka baxsadeen waxaan leeyahay geesinimo u yeeshay dawladda ku soo weysiisaan haddaad u yeelan weydaan waxaan u qaadanaynaa inaad raali ka tihiin ninkii soo sheegi waayay inuu raali ka yahay baan qaadanaynaa waxa kaloo halkan idinka sheegayaa inaan u gudbiyey beesha caalamka baaq iyo taageero inay naga siiyaan sidii aan ula dagaalami lahayn cadowgan bani aadamka waa cadow bani aadam baan oran karaa